السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبد الحميد. وحين قلنا قيبتي لبعض chapter Performance of Business Unity 1 وعينو ما أنتكو برندونو 10 كلمات partnerships أما جناسية وذاقة لو قف يوحي كبدن أي وذاقة marka 10 kan dhamaado arday walba wuxuu awood u yeelanayaa inuu sharaxo waxa uu yahay partnership ama waxa uu yahay ganacsiga ay wadaagaan laba qof iyo wixii ka badan inuu aqoonsado sida loo sameeyo halka uu raasmaalka ka helo iyo qofka partnership-ka ka mid noqonayahay qiimaha ganacsigaasi sida uu ka yeelayo waxaan kaloo 10 kan ku baran doonaa faa'iidada iyo faa'iido darrada partnership casharkeeni oo bilowdayna waa kana waa maxay partnership waxaan leenahay partnership-ku waa ganacsi ay sameeyeen laba qof iyo wixii ka badan si ay hawlo ganacsi u wada qabtaan iyagoo lacagta ganacsigu ku shaqeynayo wada bixinaya isla markaana waajibaadkii iyo mas'uuliyaadkii ganacsiga wadaagaya waxaa dhici karta marmarka qaybtood labada qof oo partnerska noqonayahay inay si isleeg capitalka ama raasmaalka ganacsiga u keenaan featureska partnership waa ay fara badan yihiin waxaas ugu muhiimsan in ganacsiga wadaagaahi uu yahay mid ay wada maamulaan dadka partnerska in capitalka iyo raasmaalka ganacsiga ku shaqeynayo si wada jira loo keeno in partnersku si wada jira ay mas'uul uga yihiin qiimaha ganacsiga iyo in go'aamada ganacsigu lagu gaarayo si wada jira sidoo kale mulkiilayaashu waxa ay leeyihiin unlimited liability oo macnaheedu yahay haddii partnership-ku uu keensado wax dhiba partners si dhammaystiran ayay u soo gaaraysaa dhammaan faa'iidada ganacsigu sameeyo waa la wadaagaa sidoo kale sharcigu uma aqoonsana dadkan partnerska inay ka madax bannaan yihiin ganacsigooda waxaan fiirin doonaa processka la maro marka la sameynayo partnership sida caadiga ma jiraan tilaabooyin khaas ah oo la qaado marka la sameynayo ganacsiga partnership-ka laakiin labada qof ee doonaya inay noqdaan partnerska waxa ay diyaarsadaan documenti loo yaqaano partnership deed oo ah documenti si faahfaahsan u qeexaya heshiiska dhex maraya labadan qof documentigan waxa uu ka kooban yahay xogta soo socota documentiga partnership deed-ku waxa uu ka kooban yahay xogtan soo socota magaca ciwaanka iyo halka uu ku yaalo ganacsigu magaca ciwaanada iyo xirfadaha dadkan partnerska noqonaya ujeedooyinka iyo hadafka ganacsiga laga leeyahay nooca partnership ee la gelayo iyo capitalka qof walba uu keenayo iyo noocay noqonayso iyo midda ugu dambaysa oo ah procedureska lagu maamulayo ganacsiga partnership-ku waxa uu leeyahay faa'iidooyin iyo faa'iido darrooyin faa'iidooyinka partnership-ka waxaa ka mid ah inuu yahay mid si sahlan loo asaasi karo maadaama uusan u baahnayn in la raaco wadiiqooyin sharci ah oo dhaadheer sidoo kale waxaa sahlan in capital la helo ama raasmaal la helo maadaama partnersku midba goonidiisa ka keenaya lacagta sidoo kale go'aamada la gaarayahay waa kuwo ka fiican kuwii sole traderska sababtuna waxay tahay wada tashi iyo fikrad wadaag ayaa jira waxa ay qaybsanayaan shaqadii sidoo kale waxay sameynayaan specialization oo ah in qofba wixii uu yaqaanay uu qabto waxaa la wadaagayaa khasaarihii iyo deymihii sidoo kale partnersku waxay isku keenayaan xirfadahoodii khibradahoodii iyo hiwaayaadkii mid walba gaarka u lahaa midda u dambaysana waxa weeye dowladdu inaysan control badan saarin waxaa jira disadvantages ama faa'iido darro uu leeyahay ganacsiga partnership-ka waxaana ugu caansan unlimited liability of the owners dadkan mulkiilayaashaahi kama badbaadayaan dhibta ganacsiga uu keensanayo sidoo kale waxaa ka mid ah faa'iidadii in la qaybsanayo maadaama ganacsigani uu yahay partnership faa'iidadii waa la wadaagaya waxa kaloo ka mid ah
slow decision making. Go'aan markii la qaadanayo wuxuu marayaa process wada tash, fikrad wadaag, isqancin. taasna waxay keenaysaa in go'aamadu ay noqdaan kuwo waqti dheer qaata. waxa kaloo ka mid ah ciladaha uu leeyahay lack of business continuity. ganacsigu inuusan sii socon karin muddo dheer. waxa kaloo ka mid ah in ganacsigii uu mid ka mid ah partners ku tiirsanaan karo ama dantii shakhsiga ahayd ay soo dhex gasho arrimihii ganacsi. waxa kaloo dhici kara isfahmi waa iyo is-afgaran waa. midda ugu dambaysana waxa weeye kabitaalka iyo raasumaalka ganacsigan uu ku shaqaynayo waxa uu ku kooban yahay inta qof walba uu keenayo. Partnersku halkee ayay ka helaan raasumaalkooda? meelaha ugu badan ee partnersku raasumaalkooda ka helaan waa lacagta ay isku darayaan partnersku. hantii uu soo geliyo mid ka mid ah partnerska iyo sidoo kale deeqaha iyo dhaxalka mid walba uu helay isla markaana uu ganacsiga ku soo daray. deymaha ay ka soo qaataan bangiyada iyo ganacsiyada kale iyo sidoo kale faa'iidada ganacsigu sameeyay ee dib loogu celiyay. Partnershipku waxa uu milmaa marka mid ka mid ah uu ka baxo ganacsigii, mid ka mid ah dhinto, waasho ama uu kaco, uu dhamaado waqtigii lagu heshiiyay inuu sii socdo ganacsiga partnershipka. in labadii qof ay ku heshiiyaan inay kala tagaan ama maxkamadii ay xukunto